aniga waxaan ahay gabadha ugu istaalka badan uguna quruxda badan galmudug yani rag walbana yani way soo damcaayaan ukaadi maasha Allah waa qurxoon tahay gabar Soomaaliyeed baa tahay mar kasta saacad kasta waqti kasta waa qurxoonta maasha Allah aad iyo aad soo dhawaada dhammaantiin waa waaska taqbalo waha kablo faarax walaalkiis macuki ka yaraa bashir balla mataanaa xasan gura saxibkiis qarasho dariskiis ku noolaa u raawna garsay kuusa hajaaba kaja lagt macal suuriya banaaweyn shanta baqab qori meesha la yiraahdo galmudug waa gobol Soomaaliyeed waxa madaxweyne ka ah saaxiibkay Axmed Qoorqoor aad iyo aad galmudug kol kasta wax cusub ka yimaado Soomaaliya waa ka horeysa inteeda kale aad iyo aad reer galmudug waa farbadan yihiin wadad badan oo Soomaaliyeed oo isu taga oo qaba illa kala duwan ka soo jeeda weyn laakiin madaxweynaha ugu sareeyo galmudug beel buu ka soo jeedaa ma sha Allah beel qiimo leh aad iyo aad u sharaf badan beelaha Soomaaliyeed ugu sharafta badan Soomaaliya ayay ka mid yihiin laakiin waan kaftamaynaa aad iyo aad baa loo kaftamayaa galmudug always gobolada kale Soomaaliyeed wax aan laga maqal ya galmudug marba ka soo yeero gabadha walaashay Soomaaliyeed hadda arkayseen kalsooni aad u qurux badan bay haysataa arigu waa ku faraxsanahay inkastoo laakiin dhaqankeena iyo caadadeennada aysan ahayn in gabar ay tiraado waa qurxoonaay oo camera laga duubo oo waliba nin intuu camera la daba galo uu yiraahdo jirkeeda iyo lugaheeda iyo xubnaheeda macnaha loogu tala galay gabar islaam muslim in la qariyo uu soo duubayo haddana waa gabar Soomaaliyeed oo walaashay kale kalsooni fiican bay haysataa aad iyo aad waa ku faraxsanahay laakiin waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo oo aan la kaftam reer galmudug waliba qaybta madaxweynaha ugu sareysa galmudug maaha qaybta caabud waaqi qaybtan kale garanaysa cali xasan qeyriye maaha mal waa dhaxdaas galmudug inta aanan la mideynin oo cadaado joogi jirtay ninkan aan hadda ka hadli doono idin tusi doono afayeen baan u ahay buu yiri reer galmudugna waan ahay buu yiri wuxuu yiri rag bay qabtay isjiiji deer kadib dharka laga dhigay buu yiri bar ila daawada wax yar waa inta tusaya daawada ku bilaabay intaas kadib waxa amar la igu siiyay qoryihiin inta la igu soo taagay dad noloshaada rabto inaad dharka oo dhan dhigto runtii dagaal dheer kadib dharkii ayaan dhigay iyadoo qoryihii la igu hayo kaamirooyin ayaa la soo qaatay sawirro ayaa la iga qaaday waxaana la igu yiri hal boosti oo madaxweyne farmaajo amar wasaare qeyrar kamid ah hadaad soo dhigtid ama qalbiga dhagax ka hadlay waxaan soo dhigi doonaa hal sawir oo sawirada hadda aan ka qaadna kamid ah markasta oo boosti soo dhigtid markasta sawiraan soo aad iyo aad galmudug is kind of funny aad iyo aad dad funny way sababtoo ah gobolada kale Soomaaliyeed waxyaabo kale meediyaha idaacadaha ay ku soo bandhigaan gabadha hadda ma sha Allah waa reer Gurceel deegaan aad u qurxoon weeye Gurceel waa meeshii meel la weeyta ahlu sunna laga saaray maamul galmudug gacanta ku soo wareegtay ninkan aad arkaysaana afayeenka horeeto roobta ay baa leeyahay afayeenka horeetay galmudug baan ahay buu yiri anigu ma xaqiijin kara title-kaas laakiin wuxuu sheegay sijiid dheer kadib oo meediyaha laga soo duubay waliba TV-ga goobjoog oo afka garanaysaa ku hadlo mucaaradka inta badan yaa arinta la soo mariyay waxa kale oo galmudug ka soo jeedo oo sidoo kale way soo caan baxaan markii barnaamijyada noocan arrimaha noocan la yimaadaan isla markii meediyaha qabsanayaan dadkii waxa weeye cirkay galayaan dad caan bay noqonayaan sida gabadha walaasha kale taada hadda koor sidoo kale waxa meediyaha social mediaha soo galay ninkan qarax quuta hadda arkaysa sawirkiisa oo gabar markaas inuu hadda guursadaan u maleynaya marwadiisa tahay laakiin markaa ma uusan qabin Nairobi joogtay sawiraydo qaawan oo markaa asaga u dirtay uu soo bandhigay social media sidii asaga uu kala kacday wuxuu ku soo caabaxay caayada gabadhaasi iyo sawirro qaawan gabadha ka soo bandhigay uu ku soo baxay aad iyo waxa soo dhabarka waxa fuuqsanayo oo qosol idinku dilaayo galmudug always special qaybta madaxweynaha qoorqoor aad baa ku salaamaya madaxweyne meesha xaafada uu ka soo jeedo always meediyaha waa daahir cali soo kaleeto waa cabdiraxmaan shkuur oo kaleeto waa fiqi oo kaleeto aad iyo meediyaha waxa aaminsan yihiin totally in ay leeyihiin whatever they wanna dadka ka gadi karaan yes waa loo baahan yahay laakiin waxyaabo qaarkood oo fari ah oo like maskaxda bini'aadamka aan qaadanaynin oo laakiin lagu socodsiinaya hadda ka hor waxaa daawateen oo idaacadaha ka arkaynay in ayax la cunayo ayax baalka la yiraahdo beeraha ku dagay
asoo la cunay bal ila arka asagana waa karaay markii la cuno maanta waxa weeye barwaaqo wax manaha cunaynaa wax manaha maxaan ku radaa aan maanta aad ugu bagnay waa ayaxii waxa weeye wax manaha wasaarkiisaan always macnaha sheekooyinka aan maskaxdanada qaadan karin ee inta badan inaga yaabiyo they came from galmudug bay ka yimaadaan aad iyo aad gabadha Soomaaliyeed ma sha Allah waa ku faraxsanaa quruxdeeda waa gabar walaashay kale saa hore u sheegay hore u socaalay laakiin dhaqaniyan iyo diin ahaanba arrin wanaagsan ma macnaha nimanka kaamirada kugu dawado ku duubayo cajalada ka duubayo maybe culture-ka Soomaaliyeed aad u yaqaanaan baro maleeyaa ama hungurigii ama dhaqaalihii social media barta ka galaan u maleeyaa aad iyo aad laakiin gabadha Soomaaliyeed always waa qurxoon tahay always sharaf leedahay always she is the most beautiful adduunyada dumarka joogo dumarka ugu qurxoon bay gabdhaha Soomaaliyeed ka mid yihiin laakiin waxa yara ceeba oo yara foolcuma ay gabar kaamera ninka daba qaato wadamada joogno waxa loo yaqaanaa beam macnaheedu waxa weeye qofka dumarka gadgado ama jirkeeda xayisiinayo dhaqaale ku raadinayo waa nin macnaha beam baa la yiraahdaa Soomaaliya wax lagu ma aqaano Soomaaliya waa ka jirtaa meelaha saadiya meelaha xun xaafadaha xun qaabka darar iyo arimahaasi ka dhacaan inta badan yaa ceeb ah in nin weyn oo magaranaysaay Soomaaliyeed aaba inuu yahay laga yaabo gabar dhalay intuu kaamera qaato gabar Soomaaliyeed aad iyo aad oo uusan xaqiijin karin maskixiyan if she's okay or not tu kaamera ka daba qaatay yiraahdo sii jeeso wareego lemya ku duubo wax aan society-ga iyo culture-ka Soomaaliyeed taboo ka ah ku hadal oo waxa tirada aad iyo aad waxaana gabadha maasha Allah qurxoonta waa yar ceeb weeye marka galmudug sheekooyin waxa ka imaado always fantastic ah oo ummadda Soomaaliyeed isla markiiba attention badan ay siinayaan laakiin dadka reer galmudug oo dhan dad xun ma aha oo asaan hore u sheegay dad wanaagsan oo qiimo leh waliba dadka Soomaaliyeed ugu qiimaha badan ugu sharafta badan baa galmudug ka soo jeedo especially beeshan hadda ka hadlay madaxweyne qorqor iyo xaafadiisa iyo gabadhan iyo roobda ay iyo ninka gabadhiisa asagoo ceebeerayo waagi soo bandhigaad ku soo caabaxay qarax qoota ee dawladda Soomaaliya iska daba dhigtay macnaha beenti barbagaadada habeenii maalin social media ku faafinay marka always galmudug sheekooyin media aan loogu talagalin oo aan macquul galahayn sida hadda roobda ay oo kaleeto sida gabadhan oo kaleeto sida qarax qoota oo kaleeto sida Cabdiraxmaan Shakuur oo kaleeto sida Daayir Cali oo kaleeto waxyaabo aan Soomaalida kale xaafadaha kale aan ka suurtoobin oo isdhahayaan somehow it's not good oo aqligooda maskaxdu sheegayo yaa qoladan inugu socodsiisa aad iyo aad inta badan media-na waa u badan yihiin hadda bar u fiirsadaan wallahi been ma Cabdiraxmaan Shakuur qeylanayo waa galmudug aad iyo aad dhinaca madaxweyne qorqor abiirka naga Axmed Cali Fiqi qeylanayo waa abiirka naga qorqor aad iyo aad saqiirka siyaasadeed ninka u bixiyay odawaa aad iyo aad qeylada badan media dhaqabsaday waa qorqor aad iyo aad roobda waa qorqor gabadhan waa qorqor aad iyo aad you name it Allah hadda sii wado aad iyo aad u tiro badan marka xumaan ma waa kaftan weeye waxaana attention-kan aan u siiyay waa gabadha video-geeda daawaday oo reaction ka bixinayo gabadha walaasha waxa la mar walba qurxoonta laakiin hooyad bari noqon doonta nin baa ku guursan doono aaba ku dhalay dad iyo ehel baa ka soo jeeda maasha Allah waa laga qurxooyay dhaqankeena ma aha Soomaaliyeed in gabar kaamera inta laga duubo la baayaco oo la yiraahdo jirkeeda fiiriya gadaasheeda fiiriya horteeda fiiriya sida hadda cajaladaan halka ka arkaysaan amal it's not good wax wanaagsan ma sida arkaysaana waan ku bilaabay cajalada waxay tiri hala share gareeyo marka share-ka iyo TikTok iyo YouTube iyaysan meel fog inala gaarin culture-kana yuusan gacmaha ka bixin aad iyo aad waroogaas ka duqbalo waxa oo arinta reaction ka soo celinaya aad baa idin salaamaya dhamaantiin share gareey cajalada gaarsiiya page walba iyo meel walba ku tuuraadiyad arinta arin siyaasad qusaysan maaha arintan reaction uga bixinayo oo aan kaftan ahaan u soo gudbinayay aad baan idin salaamaya waxa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh